أما بعد عباد الله ولا ليال إن شاء الله تعالى خطبتنا ما أنت وحير وكتل ما مدونا راتك وقرآنك كل يهن رشا ابن آدمك يسده وبدل وحكم داين تلمام دونا حين لصعنا ولا ليال قريش يا عربتي النبي محمد كصبح عليه الصلاة والسلام انتاني كسود دقين نعمة وين إلهي سبحانه وتعالى أمدا كقل الله يستي نعمة القرآن حال كود سدوها وحيا هاين كوا إسلاية وحيا هاين كوا قبيل إسكدلة وحيا هاين كوا قبيل كود موياني وحكالآن حق وأرق قبيل كود ميشا وجرؤون udagaalama walow kaanuu ظaalimiin haba ahaadaan kuwa gardaroonayeen laakiin markuu qur'aanku ku soo degay sidee bay ahaayeen waxay noqdeen kuwa isjecel kuwa ilaahay dartiis ku xidhiidhiya kuwa walaalo ilaahay oo mar walba qulubtoodu ay isxidhiidhinayso bal bacduhum yufdii bacda barbarka kale ونفتيس يوحكسو غالي يوحكسو رمتي ثمين وكفرنا إلهي سبحانه وتعالى نعمده أوسيي كورمية أوسي خزرج وحي أهاي لبا قبيلو ينكي أنصار مدينة دقي جري وقال هالصنو أي إسلين جرين تطبضا بيسكالين جرين لكن قرآنكم مركوسو دقي أي فهمين قرآنك أصبحوا إخوانا ولا لا إله أي النقدين تاسو ربنا سبحانه وتعالى وقم النشيغنيا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم حصى وحسوس بإله الله سبحانه وتعالى نعمة إله سبحانه وتعالى إذن سيي مركاد أهيدين كوا علقه وعدا وذي أي كد حيثه markaasuu ilaahay qulubtiina isku keenay nicmada ilaahay darteedna waxaad ku noqoteen ikhwaana kuwa ilaahay darteed u walaala waxay ahaayeen walaalayaal wax yaroo liita kuwa isku dila geela iyo adhiga iyo wax yaroo la kala qaaday ayay isku leen jireen laakiin bacda alqur'aani kayfa kaana xaaluhum qur'aanka kadib xaaladoodu siday noqotay كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحين نقدين كوا نفتو دا ولالكود كالدور بدا وحويان ولو عليس بحجيرو ونفتو دا قاتشها هايسي وحين نفتو دا كالدور بدي جيرين ولا له دا كالدور بدي جيرين تصالة وحين نوغفلا مركيا مهاجرين توسو هجرودين أي مدينة يمادين أنصارتي وحي رهدي يا رسول الله وحان ربنا ولا الله أيوه إن حولها نوكلا قيبسد ويغانا بدأت سيسد أنا غانا أدبرنا سيسد حتى سعد بن ربيع يومركي عبد الله ابن عوف عبد الرحمن بن عوف مركو رسولك عليه الصلاة والسلام ولا لي وحن سعد صوبا لغي وكيري عبد الرحمن حولا انتاسان ليهي waxaan rabaa nusna inaad qaadatid nusna aad ii reebtid afar gabdhood baan qabaa gabadh allaala gabadhii ku cajabisa afartaa xaas waan kuu furayaa waxa weeyaan dooro sidaasay xaalkoodu u gaadhay waa ka cabdiraxmaan ku lahaa ilaahay xoolahaaga iyo xaasaskaagaba allah ku barakeeye suuqa i tusi walaalayaal waxay ahaayeen kuwo qabiilkooda gar iyo gardarraba u garab istaaga laakiin markii uu islaamka ay fahmeen qur'aanku uu yimid waxay noqdeen kuwa xaq oo halku jiro qabiilkoodaba ha ka soo horjeede kuwa garab taagan waxay rumaysnaayeen aayadu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay ya ayyuhalladhina aamanu kunu qawwamina bil qisti shuhadaa lillah waxad noqotan kuwa allah rasuulkiisa rumeeyo kuwa ku qumayo oo fulinaya cadaaladda haba ahaato oo ku marxaati furaya ilaahay dartii walaw naftiina baad ku marxaati furtaan iyo waalidiinta iyo cidda aqrabada ah ee idin xigtada ah waxay noqdeen walaalayaal markii dambe
kuwa islaamnimo darteed isku garab istaaga oo aad arkaysay awskii iyo kii khasrajiga ahaa iyo kii qurashiga ahaa iyo kii xabashiga ahaa iyo kii roomaanka ee yurubiyaanka ahaa intuba iyagoo hal meel ka wada dagaalamaya hal jihana u jihaystay waxay ahaayeen ka hor islaamka kuwa isku xidhiidhiya kuwa ku kala baratama kuwa ku kala sharaf badan oo isku karaameeya xoolaha iyo hantida iyo magaca inta uu leeyahay laakiin markii dambe islaamku uu yimid waxay ogaadeen quraanku ku soo degay waxa lagu karaamo badan yahay ee lagu kala sharafta badan yahay inay tahay inta ilaahay subhanahu wa ta'ala loo kala agdhow yahay ya ayuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum ayadaasi fahmeen in qabaa'ilka iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda uu ka dhigay loo jideeyay oo ilaahay ugu abuuray kaliya lita'arafu lisku garto laakiin karaamada iyo mudnaanta iyo sharafta halkay ku jirta ay tahay inna akramakum 'inda Allahi atqaakum ilaahay agtiisa ka idinku karaamo badan oo idinku mudani waa ka ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku alla cabsiga badan waxay ahaayeen walaalayaal islaamnimada ka hor kuwa ka warbahaara amba ka xumaada in ay waxa weeyaan gabdhe helaan amba lagu arsaaqo waxa weeyaan hablo markaas madkood markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sifaynayo wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من القوم ما من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب مركا متكون لوغو بشارة بإله الله سبحانه وتعالى قبل مركا لوغو بشارة يئنن وجيغو سوح النقنية مثل مذوبي أو أدمودد إنو اسكو علينا يا عرضة وحو كقرصوم يا اسكا قرين يا صاحبة يددك إلكاها isagoo ka xun waxa loogu bushaareeyay markaas waxa uu ka fikiraya ayumsikuhu ala hunin talawmiyu iska haysta isagoo ku caabaysan oo ku dulaysan am yadusuhu fi turab mis'id ayuu ku qariya oo uu ku aasa saasay ka fikiri jireen amma ba'da al-islam waxay fahmeen islaamku halka uu gabadha uu dhigay markaas waxay fahmeen inay qayb dhaxalka ay ku leeyihiin qayb weyn oo bulshada kamida ay yihiin aayadan ay fahmeen lirrijali nasiibu mimma taraka alwalidan wal aqrabun walin nisa'i nasiibu mimma taraka alwalidan wal aqrabun in haq iyo nasiib iyo qayb ay ku leeyihiin dhaxalka sida ragba ay ugu leeyihiin waxay waalidiintooda iyo aqrabadooduba ay ka tagaan waxay ahaayeen walaalayaal kuwa marka hore الغالي والنفيس كبحية سيدي هنتو كسب اللهايين حوله وهل اللهايين منصب وهل اللهايين لكن مركي الدنبي القرآن كفهمين تاصور دان انتي كتاقين بي وحي نفتو دا وهرين إلهي سبحانه وتعالى درتي مركاسو إلهي سبحانه وتعالى صفين إياه سيدي رقا النقدين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إلهي وحليه سبحانه من المؤمنين رجال مؤمنين ترك أيا كمد رك دلي أيا كمد مركاسو إلهي كصفين فمنهم من قضى نحبه وحاكمد كو بلن كودي أوفيي أو قتيب إلهي الله سبحانه وتعالى مثله أنس بن نضر ودقالكي أحد إلهي كلب اللمي إن وعد رموشن دونه مركي دقالكي وحويا لقلين isagu yiri fi jabal uhud ayaan caraftii jannada aan ka urinaya markaas halkii waxa weeye uu ku shahiiday 80 nabar ayaa laga helay jirkiisa hatta la garan waayay markii dambana ay walaashi ku garatay waxa weeyaan bar yar uu lahaa ومنهم من ينتظر وحكمida kuwa sugaya إلهي سبحانه وتعالى بلنكيسا وما بدلوا تبديلا ما ندورين بإله الله سبحانه وتعالى تاسا يفهمين سيداسي ولا ليال أهايين فماذا غيرهم محابد لي كل هذه التغيرات والتحولات طمان اسبدلك سيرا فضض iyo waxa way xaalad inta iska badan xaaladda kala ay tageen
maxaa bedelay jawaabtu waa caddahay walaalayaal quraanka ayaa bedelay quraankii ayay fahmeen quraanka markuu ku soo degay saameen ayuu ku yeeshay noloshoodana quraankii ayay tabaqeen markaasuu quraanka uu bedelay quraanku walaalayaal waa manhaj rabbaani ah ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay inuu ummadan uu bedelo oo sida wanaagsan uu bedelo طريقة توصلنا وكوهاغو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قرآن كان دستور كان ندين سود دجيي ربنا وحليا وحيد كوهاغيا وكمد كوهانونينيا تتوسند بدن بالله الله سبحانه وتعالى قرآن كاسي ولا ليال ومنهج كربانيغا إلهي سبحانه وتعالى ومد وقود تلقلي إن وحويان وبدله أو أخلاق دا وناكسن وبرو oo dhaqanka wanaagsan oo baro oo caqiidada iyo tawxiidka uu waxa weeyaan ku sugo iimaanka ayaa uu quraanku u soo dagay walaalayaal quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala wa atharka iyo raadka u weyn ee ibn aadam noloshiisa bedela hadaynu u fiirsano sida uu bedelay wax badan oo tusaalooyin badan ayaa uu leeyahay ilaahay baan subhanahu wa ta'ala quraanka kamar khaati kacay saamayntiisa laakiin ilaahu يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إلهي وحو كمر خاتك عيا قرآن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كسود تجيي إنه كسود تجيي بعلمه إلهي سبحانه وتعالى علم جيسا ملائكتنا أي تاقر سيهين وكمر خاتيهين إلهي بانا سبحانه وتعالى كفلا عد مرخات النقطة قرآنكم أمد ولا على السعادة يلي إيمان أيا أوصية قرآنكم كتاب دين كليا معها ومنهج حياة ومعجز إلهي سبحانه وتعالى أمدنا صادري وحول أمدنا أبا هنتين قرآنك أيا لقيه ليا ما فرطنا في الكتاب من شيء قرآنك ولا ليال سامين تنسى حتى الجمادات أيا قري إلهي سبحانه وتعالى وحليه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قرآن كان هدانو كسود دجين لهين بو ربنا وليه بور هدانو كسود دجين لهين بور تا واحد أركي لهين يدو خشوع سن oo dildilaaciisa khashad iyo cabsi ilaahay subhanahu wa ta'ala darteeda ka cabsanayso ay buurtaasi la dildilaaci lahayd sidaasana tusaalooyinka u yeelay nabi ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka si ay u dhugtaan imaam al-qurtubi wuxuu leeyahay hadaanu ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubta adoomihiisa aanu ka yeelin inay quraanka ay xambaaraan si ay ugu cibro qaataan oo ay waxa weeyaan ugu waantoobaan sidoo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tilmaamayo inaanay buuruhu awoodeen inay quraanka ay qaadaan qulubtu xaqay ka jirtaa buu leeyahay awooda buuraha laakiin ilaahay waxa uu ugu talagalay oo uu ku arsaaqay awood ay ku xambaaraan limaada liyatadabbaru si ay ugu cibro qaataan taasna waxay ku timid fadlan minhu ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmo iyo dheeraadu ibn aadamka uu siiyay jinkii ayaa isaguna quraanka saameyn ayuu ku yeeshay nabi maxamed alayhi salatu wasalaam markuu quraankiisa ay dhageysteen ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu tilmaamayaa inay iimaanka kasbadeen wa id sarafna ilayka nafara min aljinn yastami'una alquran فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ربنا وحول تلمامة يا نبي محمد واحد حستا markaanu ku soo leexinay koox kamid jinki iyagoo dhageysanaya quraanki markay goobjoog ka noqdeen quraanki aan kugu soo dajinaynay waxay yiraahdeen dhageysta markay quraanki la dhameystirayna qoomkoodii bay ku noqdeen iyagoo u digaya markaas waxay leeyahay qoomkayow waxaanu maqalnay oo nu dhageysanay kitaab la soo dajiyay nabi Muuse gadaashi kaasoo u rumaynaya waxa uu nabi Muuse alayhi salatu wasalaam uu sheegay xaqana inagu hagaya dariiqa toosan قومك يو أجيبا قرآنك يداعيك إلهي سبحانه وتعالى أجيبا أي إليهن سو إلهي سبحانه وتعالى إذن كنتم بدافو قرآنك أي دقيستين صامين أي قرآنك كوي شيء مركاسي الروميين
kaliya may rumaynina qoomkoodina waxay ugu yeedheen inay rumeeyaan quraanku walaalayaal aayaadkiisa kooban ayaa saameyn badan yeeshay markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu tilmaamayaa suuradaha kamida suuradaha ugu kooban quraanka ayaa manhajka nolosha oo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo koobay wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آياتنا وحي كوبستي وحي ابن آدم كوكبت باديو وحي ابن آدم كوكو خساريو إلهي سبحانه وتعالى مركو عصري إيو حلقا عصر كوكو دارتي أيو حلي ابن آدم وداني خساري كسوغيين إلا أفر شيء قلت لغا هلا موياني كو إيمانك لغا هلي يعملك الصالحة حق اسكو دردارمي لباتد حقا كتما قدنا يانا كصبر كواسن بالإيمان إله الله سبحانه وتعالى قرآن كولا ليال كليا قلبك مدوية قلبك يجرك انت بالدواء يا شفاء يهي إلهي سبحانه وتعالى تلمام يا أيها الذين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور تذكيو أي إلهي رواقي وحولي وحيدين تمد وانو إيوه وحق ربك إذن كتمد يا شفاء يا دواء وحكسو قلوبتا كجرتا يا صدورتا يا لابها يا هانون يا نحريس مؤمنين توا قرآنكو وحو الدوية أمراض القلوب سيدوك الإلهي وحوت المامي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآنك حقي سوحن كسو دجين وحو شفاء يا دودتك مؤمنين تا مركا جركا يا قلبك انت بقرآنك والدوية قرآنك ولا ليال دراساتك عصبي وحي تلماميان إن قرآنك ويهي مسترك وين ابن آدم كأوصية وحلو يقنا الصحة النفسية أما نفتي سويني عافمات قبطه أو قف دقن وبلا وربهارة ونقضه وحاوق بضان لقهنا قرآنك ونفط أياكو حسشا إلهي بنا سبحانه وتعالى تات المامي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كوا مؤمنين تأي قلوب تدو كحسلا يسود ذكرك إلهي ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكرك إلهي أي قلوبته أي كحسشا دراسات كحية المامين ولا ليال دورك وقرآنك وكل يهي حتى وحبر شدع عرورتا مراحشو ذكال الدول أي تلماميان وأي ليهن إلمها يروحا في عن مراحيشيسا إن قرآنك لغو بلابو لأنه تاسي وحي كقيب قادنيسا إلمه يرى فهم كيسي إيو وحوية وحبرشدي إنو هير كقارو إيو إنو أخلاق دي إيو قيم كي ونكسنا أوبرو وحان رباي ولا ليال إنو كسو قبق إنو بل سيدا تصالوين كميد قرآنك إيا سامينتو إيا شيء نبي محمد عليه الصلاة والسلام وتاهر ماذا إنو قوها أيا صحابة دي سكميد أيا وحولي ابن مسعود قرآنك يقول أخري نبي محمد وما أذيك القرآن كوكو سود دقايا كو أخريا وحان جعلها إنان غير كي كم مقله مركز سورة النساء بلابيا مركز سوق قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نبي عليه الصلاة والسلام فإذا هي عيناه تذرفان مسوى به سو نبي محمد عليه الصلاة والسلام المينية تأثرا بالقرآن قرآن كاو كسامو بي صحابي أيام التابعية وحو يديني عائشة وحو ليك صحابة إيو سيديبو هايان دقن كودو مركي قرآن كمقلان مركاسي وحي الذي تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم وحي هايان كوا اندهودو أي الميان جركودو وقبن دعيودو سيدو إلهي سبحانه وتعالى وكت المامي وإلهي سبحانه وتعالى وكت المامي إن قلوب جلودو تقشعر جلودهم يخشون تقشعر جلود الذين يخشون ربهم إلهي سبحانه وتعالى وكتل مامي وحاتو صالحين وقفلا ولا ليال عمر بن الخطاب هلكو قال لماذا وكتاقنا انتانو إسلامين مركي ولا شيء يسيديق الله شاقي إنا إسلامين وقتلقلي إنو هلكا وحكا سوقبتو قريقي مركا وقراعي أيا وحو مغلي قرآن يا أخريان ويكفرين مركاسو يدي واحد أخريسان إيديبا مركاسي يراد كو ديبي مينو مركي دنبي وديمين أيا وحو أخري طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى آيات كي سامين بدن بيكو يشين فأسلم مركاسو إسلامي سعد بن معاذ
رضي الله عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن وننكي سحابي عرش الرحمن وقريري مركي وحويا انتي وحو أهامد كميدا ملحدة أنصاريت أيو كميد أهام كدبنا مصعب بن عمير رضي الله عنه أي نبي محمد عليه الصلاة والسلام الدين أدري كدبنا مركا وأركان من كان وحويا دعاء هي وحيري وأن من كان نجا أمسي أوس بن خزر وحون كذا أسيد بن حضير أي أدري كدبنا أسيد مركي قرآن كله آخره وسامة وهو إسلامي استجيب كسرنا دوارني من كم حيكوا إلى هذين adigu u tago waxa weeyaan bal u soo sheeg inaga aamusay ayuu ku yiri kadibna markuu u tago wuxuu waryaareen intuu seeftiisi soo qaatay si uu u dilo u aamusiyo kadibna waxay ku yiraahdeen hadii aad in yar naga maqashid oo aanu ku sheegna haddaad ku qanacdina ahla wa sahlan hadii kale wal iska tageena soo daaya buu yiri cadaaladiisna ka shaqeeyay kadibna waxay ku akhriyeen fi awal ayat suurat fusilat سورة الزخرف عفوا حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون آياتك آيات صامين كل شيء فأسلم مركاسو إسلامي مركاسو ولما إسلامي ماذا هير كي كقادي هل كاكليكم يتشوغيني وحاو انتو قوم كيسي كن نقضي أيا وحاو يري وريارهن والله هدي إسلام لماذا يدين تأرمي قادم ويدان وحبا إذن كعوني مايو هل كي بيكو إسلامين وإسلام لماذا يكو قاتين قرآن كسامينتي ستصالة وحي نوقو فيلا ولا ليال نجاشي أو ملكي عادل كا بقر كي حبشدة مركي جعفر يا أصحابتي الرسول كأي وجروا ذي وتجين أيا وحي محاض ودان كدبنا وحي جعفر وكو آخري في أول سورة مريم سورة مريم أول كيدي كافها يا عين صاد أي كوخر ذكر رحمة ربك عبده زكريا مركو آيات كو أخري مركاسو وحويا أويي حتى أوينتي سأي قركي قويسي مركاسا انتي كوهر رسنيدا أويين إلا أي المضو قركو دي أي قويسي مركاسو والله كان الله تمد ويك عيسى وليمد اسكو ميلكلي أي كصوبحين سيداسو قرآنكو سامين ولا ليال أوليهي وحاتو صالي إنه قفل ولا ليال عابدكي ويناي لو يقاني عابد الحرمين الفضيل ابن عياد أيا وحوهانين رنتي وحويا دولشيف oo dadka meelaha u gala marka waxa la yiri maalmaha kamida gabadh ayuu caashaqay oo uu jeclaaday isagoo raba gabadhii inuu waxa weey u tago ayuu gidaar ku rabay inuu ka soo dego oo halka uga soo dhaco كدبنا وحو مقلي قف أخرية ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله مياني ودوان دتك مؤمنين تي قلوب تود ذكر الله وخشوع ده هل كيبو كتوبت كانوا بلا قد آن والله إلهي وودواته هل كيبو كتوبت كاني وحنا إلهي النذر كلك لي إنه كعبة إنه مجاورة للنقضه أو شار للنقضه كعبة سداسان ugu toobad keenay ilaa uu la baxay markii dambe caabidul haramayn labada haram caabidkoodii ilaa uu la baxay walaalayaal saameyntu kaliya kuma laha dadka muslimiinta hatta dadka kristanka iyo dadka gaalada ee yahuuda iyo hinduuska iyo kuwa la midka tusaalooyin aad bay u badan yihiin tay quraanka maqleen saameyn ay ku yeesheen nin loo rajiray Ibrahim Khalil Ahmed oo kamid ah dadkii qasaawisada iyo baadiriyaashii waaweynaa ee kristanka intaanu islaamku wuxuu ku leeyahay waxaan yaqiinsanahay haddaan noqon lahaa insaan wujuudi ah oon aaminsanayn inuu rabbi jiro oo aan aaminsanayn risaalaadka samaawiga oo dad iiga waramaan quraankan iyo waxa uu leeyahay cilmi xadiidka waxay naftaydu ay ku qasbanaan lahayd in aan ilaaha quraanka soo dajiyay in aan rumeeyo mid kale Aamir Ali Daawud looran jiro isna Hindi ah wuxuu leeyahay waxaan soo qaatay nusxo kamid ah quraanka oo ku tarjuman Ingiriisi waxaan ogaa inay leedahay uu yahay kitaabkan kitaab muslimiintu kitaabkooda muqaddaska kadib waan akhriyay si fiican waan u dirsay ilaa markii dambe aan helay jawaab iga qancisa jawaab su'aashii aadka ii wareerisay ahayd maxaan hadafka noloshan الله أبوري محويه سؤال شاسون كجوابي كرواي قرآن كي مركان آخرية أي جواب وافيه لي سيدي ما ننكو إسلامي حتى دكاترة دي وويناي علمي عافمات كهير بدن كجاري سيد جرينر أوكره مركي لو يدي وحير قرآن كني
ارتباط وين يحريد وين أي وحول لا علوم تكلدون الساينس هذين نقول عافماتك هذين نقول له طبيعة علوم تكلدونايا أمبرتي مركان يرى وحن هلا آيات كي أو سي وناكسن أو وافية وجوابية مركان وحن يقين صدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه حق عد ولا يمد كل سنة كهر إنه لا يمد أنت عن هالكاسان وتشيرين معلم iyo wax weeye mudarris bashariyadan baray cilmigan wuxuu yaqaanay maxamed kun sano ka hor ayuu yaqaanay ayaa uu tilmaamaya sidaas walaalayaal quraanku uu saameynta ugu leeyahay dad badan markay dhageysteen ay ku soo islaameen waxaan u soo qaadanaynaa walaalayaal inaan inaguna isku dayno nolosheena inay nolol aynu ka dhigno xayaatal quraan nolol quraanka ku saamowda nolol quraanka la nool nolol quraanka ee wax weeyaan habdhaqankeena wax badan ka bedesho oo sida wanaagsan u bedesha ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa in khayr addunya aakhirah bayna waafajiyo thumma sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati was salam alayhi haythu qala rabbul izzah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima